halkan inaan kala dardaarmo kuna booriyo kuna adkeeyo kuna faro dhammaan dawlad goboleedyada haddii ahaan lahayd magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka oo ah 10 magaalo iyo madaxdoodaba iyo shacabkoodaba inay u istaagaan dardargeliyaan doorashada golaha shacabka hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa arrin degdeg ah oo loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inay culays ku saaraan in hawsha doorashada golaha shacabka la boobsiyo si dalka uu uga gudbo marxaladda aynu maanta ku jirno una galo marxalad cusub ee dawlad cusub iyo nidaam cusub hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo maantay diray qalabkii iyo agabkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka una kala diray 10 magaalo ee doorashooyinka ka dhacayso saa darteed wax kasta waa diyaar wixii awoodeena ah biyo sacbahaga looga dhargaa sacbadeena waa inaan wax ku qabsanaa cidna waa inaanan sugin doorashaduna way dhamaanaysaa insha Allah laakiin su'aashu waxa waaye in ay shacabka Soomaaliyeed nagala qayb qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inay u dhamaato anigaas ka ra'iisul wasaare aan roobana aan xafiiska sida ugu dhaqsiyaha badan aan u faariqiyo uguna wareejiyo qofka Ilaahay uu calfo hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo waa iga go'an tahay arrintaas